magaalada Muqdisho waxaa ka socda dadaalo lagu doonayay in ciidanka xoogga dalka looga saaro caasimadda iyadoo ciidamadan dabayaaqadii bishii Abriil ay soo baneeyeen fariisimihii ay ku kala lahaayeen gobolada shabeellooyinka. ciidamadan ayaa si weyn waxay uga hor yimaadeen tallaabadii uu golaha shacabka muddo kororsiga ugu sameeyay hay-adaha dowladda federaalka 12kii bishii hore ee Abriil, walow arrintaas markii dambe laga laabtay. sida wararku ay tilmaamayaan, ciidankan waxa ay haatan ku kala sugan yihiin qaybo ka mid ah degmooyinka Hodan, Howlwadaag, Yaaqshid, Kaaraan iyo Cabdicasiis, iyadoo ciidanka ku sugan degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ay ka tirsan yihiin guutada 7aad qaybta 6aad, halka kuwa ku sugan waqooyiga Muqdisho ay ka tirsan yihiin guutada 4aad qaybta 27aad. ciidamada soo baneeyay fariisimihii ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa horkacaya saraakiil uu ka mid yahay taliyaha guutada 4aad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Korneel Sane Cabdulla Gaab, halka Faarax Xasan Ibraahim iyo weliba Liibaan Madaxweyne ay horkacayaan ciidanka guutada 7aad qaybta 6aad, kuwaas oo soo faaruujiyeen saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka Leega ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidamadan ayaa gurmad ahaan waxay ugu yimaadeen hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markii hoygiisa ay ka agdhawaadeen ciidamada Haramcad iyo kuwa booliska gobolka Banaadir. arrimahan oo idil waxa ay daba socotaa hadal wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Barlanga shalay uu sheegay kaas oo uu ku xoojinayay hadalkii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ahaa in ciidamada dib ay ugu laabtaan xeryahooda. wakiilka midowga Yurub waxa uu ku baaqay in ciidamada laga saaro caasimadda. qoraal uu ku soo daabacay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in Muqdisho oo lagu kala qaybinayo ciidamada ay cawaaqib xumo ka dhalanayso. Nicholas Barlanga waxa uu soo jeediyay in cid kasta oo doonaysa inay kaalin ka qaadato hannaanka doorashooyinka dalka ay tahay inay ra'iisul wasaare Roble ku taageerto shaqada uu wada xilligan. sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada Muqdisho waxa ay wadaan dadaalo ay ciidamada militariga uga saarayaan magaalada, iyagoona garabka mucaaradka ku cadaadinayo inay ciidamadu baneeyaan goobaha ay dhufaysyada ka samaysteen. saraakiisha ciidanka militariga horkacay ayaa mar sii horeysay waxa ay sheegeen inaanay dib ugu laaban doonin xeryahooda ilaa iyo inta uu ka furmayo shirka wadatashiga qaran ee lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka, kaasi oo ra'iisul wasaare Roble qabanaya 20ka bishan. Cabdishakuur Maxamed Maxamuud, warbaahinta Nation, Muqdisho.